Saaxiibayaal, tani waa magaalada Hargeysa oo ka bilaabantay berihii ugu dambeeyay faafinta diinta Kiristaanka ah. Laakiinse halkan markaan niga diyaarinay saaxiibayaal muuqaalkani waa meel ka mid ah garoonka Hargeysa Cigaal International Airport. Runtii waxaa lagu arkay nin faafinaya diinta Kiristaanka. Run ahaantii markii muuqaalka aan dhamaysnay aan daawanan xogta aan helnay wuxuu yahay ninkani nin Chinese ah laakiinse ah diinta Kiristaanka faafinaya. Haddaba saaxiibayaal muuqaal ayaan niga diyaariyay. Ugu horreyn saaxiibadaad hore channelkayga subscribe saaran. Hadda saaxiib muuqaalka like saar, channelkan subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaalada iyo barnaamijyada aan halkan ku bixinay saaxiib 24 saacba. Haddaba ninkani waa nin Chinese ah kaasoo ka yimid xaggaasi waddankiisa ama xagga Yurub taba. Laakiinse wuxuu ka soo degay garoonka Hargeysa Cigaal International Airport. Runtii ninkan ayaa lagu arkay kamaradaha Hargeysa duubeen isagoo faafinaya diinta Kiristaanka laakiinse isla garoonkana ku caabudaya. Dadka markay sheegaan ayaa dadka jooga meeshaas ayaa sheegaya in ay Somaliland dimuqraadiyad tahay. Laakiinse waxay sheegeen dadku in uu yahay nin faafinaya diinta Kiristaanka. Sidoo kale dadka jaahiliintan waxba ka ogeyn in diinta Kiristaanka habab kala duwan ay u faafinayaan dadkan lacagta soo qaatay. Taasoo badanka dadka Somaliland jooga 100% ay yihiin muslimiin. waana wadamada kaliya lagu tiriyo in ay yihiin muslimiin waddanka Somaliland. Laakiinse nasiib darro xagga xukuumadda ayaa soo wajahan oo ah in diinta Kiristaanka si yaro qarsooniyaha loo faafinayo gudaha magaalada Hargeysa. Laakiinse iskuulla iyo daraasiin lagu dhigto qaar ka mid ah kitaabta Masiixiinta ayaa isla waqti xaadirkan Hargeysa yaala. kaas iskuullada aan wali wax xiritaan iyo xorriyadiisa aan laga qaadin oo iskuullada isla waqti xaadirkan aan joogno ay shaqeeyaan. Laakiinse nasiib darro aad weyn weeye taasi. Yoga ku dhaq magaalada Hargeysa ayaa si weyn uga cadhooday. Sidoo kale muuqaaladan halkan saaxiib nigu hana hadda daawatid waa mid ay muslimiinta dhammaan ay ka cadhan doonaan. Sidoo kale diintan Kiristaanka ee faafinaya dadka Chinese-ka ama dadka xagga qurbaha ka yimaada sidoo kale waa diin ay dadku ku sheegeen in ay cusub tahay. Laakiinse asalkeedu wuxuu isla soo biyashabanayaan in ay tahay diin Kiristaanka. Haddaba muuqaal ayaan saaxiib nila wadaagi doonaa isla waqti xaadirkan bal waa kan eega. sidoo kale dadkan ayaa lagu arkaya iyagoo ku dhaqan magaalada Hargeysa dhex maraya wadooyinka qaar ayaa lagu arkaya iyagoo kolba inta cabaar yar talaabsadaan haddana sujuudaya. Sidoo kale wiilkan faafinaya diinta Islaamka ma aha diinta Kiristaanka saaxiibayaal. diinta Kiristaanka wiilka faafinaya ma aha qof xiran dharka ama dhar loogu talagalay ee wuxuu iska xiran dhar shiciba. sidoo kale dadka laga dhex garanayo sidoo kale saaxiibayaal dadka Somaliland jooga qaar ahaan caasimadda Hargeysa ayaa dadka badanka leeyihiin Somaliland waa dimuqraadiyad. taasoo runtii noqonaysa in Somaliland nin kasta haysatidba ay kaga dhaqmi kartid aad taada doonteed raaci kartid. sidoo kale taas waa arrin aad looga naxo oo runtii walwalkeeda abuurkeeda leh. sidoo kale jiilka dambe ee Somaliland kasoo kaban doona in ay diin khalkhal kula kulmi doonaan ee odhan doonaan teebaan raacnaa. taas ayaa mustaqbalka dhici doonta saaxiibayaal. laakiinse runtii markaan diiradda saarnay arrinkaas ayaa arrin fool xun noqday saaxiibayaal. muuqaalkani wuxuu ku caddaynaya in uu yahay dadka bal siday u eegayaan wuxuu yahay barwaaqana daawo saaxiib.